الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore ilaahay waxaan ku mahadinaynaa inuu nagu sharfay inaan ka soo qayb galno madasha qiimaha badan. Thumma waxaa mahadsan madasha culimada Soomaaliyeed oo soo araashay kulankan qiimaha badan. waqti munaasabana ku aadisay qabsoomida kulanka kan oo waxyaabo aad iyo aad bulshadu u baahan tahay ugu baraarujinayo. intaas kadib waxaan marka hore ilaahay ka baryaynaa maalmaha bisha Shacbaanka nooga haray inuu noo barakeeyo, bisha Ramadaankan uu nagaarsiiyo, inaan dadaal badan bishaas Ramadaanka bixinana oo nawaafajiyo daacada ilaahay ku bixino uuna naga aqbalo. intaas kadib dhowr meelood oo ila istaaga mudan oo 5 meelood ah ayaan u istaagi doonaa. arrinta koowaad waxay tahay ujeedada loo jeeyay oo loo farad yeelay soonka oo sheekhan shariifna hore lagu baraarujiyay inaan marka hore isku baraarujino arrinta Ramadaanka loo farad yeelay. ilaahay baa noo sheegay subxaanahu wa tacaala oo waa inaan xaqiijino ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaala. bishaas Ramadaanka marka aan soonno waxaan rabnaa natiijada iyo miraha kama dambaysta in ka rabna inay ka soo baxaan waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala liiska muttaqiinta lagu qoro, dadka ilaahay ka cabsada liiskooda in la geliyo. waana noo sheegiyo aayadda u horeysa 5 aayadood oo kusoo degta soonka arrimihiisa. aayadda u horeysana waxay ku dhamaataa la'allakum tattaquuna. aayadda 5 aayadood dambeysana waxay ku dhamaataa sidaas oo kale kadaalika yubayyinu Allahu lakum aayaatihi la'allakum tattaquun. marka taqwada marka dadka muttaqiinta waxa waaye taqwada waxay kamid tahay maraatibta iimaanka meelaha ugu sarreeya kamid tahay. dadka muttaqiintana waa kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jannadiisa u diyaariyay. الله يقول سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض يعدت للمتقين. الله يقول سبحانه وتعالى تذكر مؤمنين تعيسوا الله هذا ودق دقع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم دم داف حق ربينا إذن كجا إيمانا يدق دقع يا وجنة عرضها السماوات والأرض جنة بل عيد السماوات يا ريال كل سكدر وياي. jannada sidaas u ballaaran oo ballaceedu intaas leeg yahay dhirkeedana cid Allah aan ahayn ogaysan jirin. jannadaas yaa loo diyaariyay. Allah noo sheegay oo cidda muttaqiinta loo diyaariyay. muttaqiinta marka tilmaamahooda dhowr tilmaam Allah nooga sheegay. alladheena yunfiquna fi sarra'i wal dharra. Allah wuxuu ugu hormariyay waa kuwa maalkooda wax kamid ah bixiya xaaladaha adag, xaaladaha barwaaqada iyo khayrka ay ku sugan yihiin na way bixiyaan, xaaladaha duruufaha adag iyo dhibaatooyinka iyo shidooyinku jiraan way bixiyaan. marka sifada wax bixintu waxay kamid tahay sifaadka mu'miniinta ay kamid tahay. walidaalika Ramadaanka waxa la rabaa in lagu dadaalo waxa kamid ah wax bixinta. waxa kaloo Allah subhanahu wa ta'ala wal kaadimiina al-ghayda, kuwa ilaahay subhanahu wa ta'ala wal kaadimiina al-ghayda kuwa caladooda qariya haddii xanaaqaan oo caroodaan caladooda way xakameynayaan, dagaal ma sameynayaan, argoosi ma sameynayaan, waxaasoo dhanna soonkay wax yeelayaan hadday sameeyaan. marka caladooda way xakameynayaan oo qarinayaan. wal caafiina cala naasi kuwa dadka iska cafiya. haddii cid ay ayaga dhibaato u geysato way iska saamaxayaan. wallaahi yuhibbul muxsiniin. ilaahay dadka muxsiniinta waa jecel yahay. وحكالو كمدا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وحكمدا متقين هو مركز حمان سميان أما ينفتوا ظلميان ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الله يحسسنا
duruubtii ka dhacday ayay ilaahay subxaanahu wa tacaala uga dib dhaaf weydiinayaan kuwaas marka faaxishada markay sameeyaan ilaahay xasuusanaya dib dhaafka weydiisanaya muttaqiintay ka mid yihiin waxyaabaha aad cajaa'ibta badan waxaa ka mid ah taqwada muttaqiinta oo mu'miniinta qaybahooda kala duwan kuwa u sarreeya ayaa wuxuu alla subxaanahu wa tacaala uu ka mid dhigay kuwa dembika dunuubta lagala midda ugu waaweyn oo faaxishada ah faaxishadu waa dembi aad u fool xun oo dunuubta lagala midda ugu weyn ah qofku marka uu dembi ugu weyn galo ee uu ka tooba keena si dhab ah wuxuu ka mid noqon karaa maraatibta iimaanka meesha ugu sarreysa u geli karaa muttaqiinta uu ka mid noqon karaa walidaalika halkaas meeshaas maxaa nooga muuqanaya meeshaan oo kale marka la joogo in marka hore aan hawsheena ka bilowno ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan u tooba keeno oo dunuubtii aan galnay aan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan uga tooba keeno towbaduna guud ahaan dadka mu'miniinta ilaahay waa faray watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun waana jecel yahay alla subxaanahu wa tacaala towbada ilaahay addoomikiisuna in towba keenaan alla waa jecel yahay subxaanahu wa tacaala alla wuxuu leeyahay wallahi yuriidu an yatuuba calaykum alla wuxuu doonayaa inuu idinka towba aqbalo oo intaad towba keentaan oo towbadiina aqbalo ayuu alla doonaa subxaanahu wa tacaala alla markuu asigu doonaa marka inuu towba keeno towbadeena aqbalno towbadiisa towbadeena allamadana ugu jirta haddaan towba keenno towbadeenu ma anfici haddaanan towba keenin towba la'aanteenu ma dhibe waa maya ilaahay annaga wixii dan noo aho ilaahay subxaanahu wa tacaala nala doonaya marka qodobka koowaad waa inaan xaqiijinno taqwadii ilaahay waxaana ka mid oo ka mid a waxyaabaha lagama maarmaankaa si aan taqwada ilaahay u xaqiijinno inaan cusboonaysiino towbada markastaa loo baahan yahay laakiin maadaama bishii khayr barakaysneed oo ramadaanka ay nagu soo fool leedahay waa lagama maarmaan towbadeena inaan cusboonaysiino marka qodobkaas intaasaan uga baxaa qodobka labaad wuxuu yahay التخطيط للاستفادة من شهر رمضان إنه قرش الله سما يصير في شهر رمضان كله فايدة صلاة تخطيط كما حنقول جدنا وحنقول جدنا قفكو إنه وجودك اللي هاي في شهر رمضان إذا جبته وجوده وجودنا إنه حقيقي وجودنا سودنا إنه حقيقينا وصائشي ودوينك وأمر لها وكو حقيقي لها إنه تياصل في شهر رمضان كما حنقولنا bisha ramadaanka dad baa waxa laga yaabaa dad badan oo diyaar garoobay oo siyaabo kala duwan ugu diyaar garoobay qaar baa laga yaabaa inay ka fekereen bisha ramadaanka xoolo ilaahay siiyay inay xarumaha qaxootiga geeyaan raashin inay dadka masaakiinta afuriyaan inay dadka ay qaraabada oo ka warqabaan inay duruufaysan yihiin ay wax taraan qorshe noocaas dad sameystay jira waa qorshe aad u wanaagsan kuwa kala samaysta qorsho bisha ramadaanka inay quraanka dejiyaan ama dhowr jisoo kamid ah inay macnaha quraanka bartaan kuwa kala laga yaabaa inay qorshaysteen inay maaragtay dadka waxyaabo kale oo fara badan oo dadka anfaco la inay sameeyaan ama ayaga naftooda anfacay kuwa ku talagalay bisha ramadaanka jadwal samaystay taraawix halkuu ku dukalahay iyo masjidku ku dukalahay iyo inta jisoo bisha ramadaanka akhri lahay iyo inta jeero khatimi lahay qorshe samaystay kuwa kale waxa suurtagal ah inay qorshe kale samaysteen oo ama dubnad soo gateen ama turb soo gateen ama tiimka ay koobka ramadaanka la ciyaari lahay isku sii qoreen ama musalsalaadkii ay isku madadaalin lahay inay soo gateen waa qorshe asagu waa qorshe hadda labadaas qorshe qorshaha labaad ma laga gaarayaa natiijadii bisha ramadaanka in lagu gaaro la rabo alla ka cabsiga oo taqwada ma lagu gaari karo qorshaha labaad waxaan isleeyahay jawaabtaas waa cadda qorshihii aan ku xaqiijin lahayn taqwada ilaahay inaan xaqiijino oo muttaqiinta ka mid noqono liiska muttaqiinta ilaahay ugu qoro waa inaan qorshahaas fiirsano qof walba waxa laga rabaa min al-aana bishaas khayrka badanne sidoo uga faa'iideysan ku sii fikir taas waa dhinaca qorshaha qodobka saddexaad wuxuu yahay al-istibshaar wal farah biqudum shahr ramadan in lagu bishaaraysto
لغنا فرحه بشهر رمضان سوقلتان كذا إماشية محايا لي بشهر رمضان هو النعمة آدوي وآدو بالله وآدو قيمة بدن النبي قال صلى الله عليه وسلم وأقول بشارين جل الصحابة وحكم له وحيابي مكان هالحديث كسر قاته بشارون يمكن أن يوضح أقول بشارين جل مكان بشهر رمضان كأي تمال أتاكم رمضان شهر مبارك وهذه من رمضان كأهل بالبركة يسن الله بركة وكتنا من رمضان بركة وخير في رمضان أيام الجيلة رمضان أو بالبركة يسن أيام الجيلة فرض الله عز وجل عليكم صيامه إلهي نقول وشينا كفر ذي لأن صومتان صوم كيس إلهي كفر ذي مش رمضان كا صوم كان فرض أيوب ذي أنا معتها تفتح فيه أبواب السماء أو أبواب الجنة نواجدها وحا لفريا رمضان كده يصير لفريا الباب هذا السماء عمل ولا أكثر الله سماء إلهي سماء وكل الباب هذا عمل كاصل ومر لهاي ويفريني الباب هذه جنة أفران سيدا نقول حديث وعدين وتغلق فيه أبواب الجحيم وحابيش رمضان كلا حين الباب هذه النار وتغل فيه مردة الشياطين وحالك كتينا ليا شياطين تقوى أمة لها أرك إذا كأدو فسالي بل هذا مش عن فيه قيمة إلا عدو أمة دانو لك أبوين أو شياطين توكي واحد كليه وحاقوف بدن أون إلهي كبر أن سبحانه وتعالى إلهي الذي سير هذه شديسة إلى الباب الجنة وبلغيه وحا إلهي سبحانه وتعالى أقوف بدن أون كم مكان قلنه نارتي على الإلهي نارتي الباب الوحيد وابيش القرآن كسود دقي وابيش حسنات كلا لا باي وإلهي بيش ذنوب تفرع بدن النافعي وابيش إلهي سبحانه وتعالى خلق فرع بدن أو بريناي أو ولي بهابين كسو بيش رمضان كمل إلهي خلقي بدن أو ناروا جبت أيو فريا هذا بيش النوع عاسى إلا هو بشارة يستو أو لغو فرحه أو قلبي فرن بقصو دويو بهو يسان مدني كلا ويمضان تاي مركا قضب كاسفرك قضب مهم هو dadka qaar waxa laga yaabaa iimaankooda uu saxoog badnay inay kaba sii walwala bisha Ramadaanka imaanshadeeda oo uu ka fikiro waxyaabo maaragta walwal oo ku abuurno noloshiisa ka fikiriyo yani waxyaabo waxaas waxa wax shaytaan ku abuurayo bisha waxa la rabaa in lagu farxo oo la soo dhaweeyo ayaa loo baahan yahay qodobka ku xiga wuxuu yahay oo in la kor istaagay mudan tahay bisha Ramadaanka fadaaisheeda هل يلا بانك شيء وفر رمضان تفضل شيء وحكم إذا أردت بيش رمضان كواسيد الشهور بلا دن بيش أو خير كبرنا وسيد كواسيد حديث كوسو عرورتي ونبي صلى الله عليه وسلم كوي حديث حسنة أو إمام البيهقي وصوص عري وحكويري سيد الشهور رمضان وحكم إذا وحيابا رنتي عن الحديثان رواينا سوقاته حديث كاس وحكت المامية dadka sooma bishaas Ramadaanka Ilaahay dartiis u sooma karaamaynta Allah subhanahu wa ta'ala u karaamay hadithkaas wuxuu leeyahay kullu amal ibn adam lahu alhasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhif qala Allah ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa huwa nabi sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala amal kasta oo bani aadam ku sameeyo isaga iskale xasanada amal kasto alla sameeyo oo wanaag wax kasto xasana oo qofka bani aadamka uu sameeyo xasanada waxa lagu abaal gudayaa 10 laab ilaa 700 laab 10 laab qofka markuu shay wanaag sameeyo waxa ugu yar 10 laab ugu yar ilaa 700 laab laakiin wuxuu yiri Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu bacdi qudsi waa illa soomku kuma jiro واحد طبعا لا إلى تضرب بقول الله لا أنت بقول حسب الله لا بصوم كاملنا الله يقول فإنه لي وأنا أجزي به صوم كأنا إسكاله عشان نفسي سو أضيف في الله نفسي سأيوتي لي الصاع عبادات كونهم أسيك ترتي سلا سمايو الله يقول سبحانه وتعالى صوم كأنا إسكاله وأنا أجزي به أنا أبى الجود عد كلا أبى الجود كيسة عد كلا وحل صارمة بهذا فيري وحلا جان قوي أو حسنة وحلا جهلا طبعا لا 700 الله صوم كواك ساعة
صوم كوما جرى صوم الله وحول أنا إسكال مركب هذا فيري هذا الجود كأنت أصله يتكلم كأنت أصله وحيل من تهالي قف بقرة أو ضد بدن أو أركه إلا مرتجليو هذا الجودنا الله سيوم مدن يسوي يرو مرتقى علي مركب يدك يسوي يعني ضد بدن يسوي ميدان dadkii khudamada ah oo adeegayaasha ahay la ballamay oo yiri dadkaas yaga ah hebel intaas siiya hebel milyan siiya hebel yani intaas siiya hebel intaas oo boqol siiya hebel intaas siiya hebel intaas oo kun siiya sidaas uu markaas uu khudamay wuxuu yiri hebel Soomaa hebel ninka la yiraahdo asiga waxaan idin diray kamid maaha asaga ana maamuuskiisa ana idinku aamin ma ana maamuusay maamuuskiisa يا بالجود سيرتيز أنا إسكال أنا ماموساي قف كيمو مركز متقنا سكار أو ماموسو أسباب مركز أو ماموس كيسة عدو ما حصل أسكال ماموسو نكبركا أو مركز نكاز إسكال يبقى أو أسكال أنا ماموساي ذاتك خدمة ذا قف ذاتك نودري ماموس كذا كمل ما هو يري ماشاس ماموس كوينا يا بالجود كوينا بفكر ساعة مركز مليون دولار رفلسي ملايين دولار رفلسي واحد كرو قيمة بدن هالسي واحد ذهب هالسي واحد دولار هالنقدام واحد كستول اللي بيحيو ضدك شغالها وأي بحيان أو توم مجعابه هبل التاسي واحد قيمة هي المال متكو أصابه صار ربي أو أنا مرتقات كيس 70 كاس أيات قيمة يومنا ما كفى الله يشوف فربنا تهاي كاس أكمل النصام كله شفيعة لصاحبه قف كصوم كصومة صوم كي عرفتي سإلالية وحيابي صوم كأجل كيس نسخاني هاي كفوا قاعدة دلال كي لبه إن اللي ماذا قف كصوم مالك يوم قيامه وشفيعة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة قرآن كان الصوم هو صاحب كورة وشفاعة مالك يوم القيامة صوم كله لي هاي منعته الطعام والشراب والشهوات فشفعني فيه منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه إلهي يوم انتبه يا شهوات يا حاس كيسي يا عبتاني وحبها نايودا أنا قدرت متقانا مالنتي وأسكراف إلهي يعني متقانا وشفيع مركز الله سبحانه وتعالى وشفيع عليه سبحانه قرآن كل سيدة سوكل وحولي هاي هابينك سوجيت كهابينك بان كرهيبي وأنا قدرت سوجيت له وشفيع الله سبحانه وتعالى شفيع عليه سبحانه فهذا فيه ما محام باهي ولا نقبنا ماري أن عيد إرجعي كرتاجرين إنسان كان عن كل لأنه أو إنسان كان مد وأستاهل إنه نجير جاي أو نقضه محام باهي ولا نقبنا وحي وده بيسينا يعني أو وقفة شهر أي تاي أعمال هم مهمسن بشر رمضان كلا قبضة أي تاي هل روح بين الشيء كو وحكمل صونك لصومه لنا إلاليو طاعة إلهي للمددالو وحيابها مارك الصومك أما برينايا أما ثواب كيس نسخاني على إسكا إلاليو تاسو للمددالنا وحلوه لا بالمداف الله صلى الله عليه وسلم صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قضب كلا وذهب هي قيام رمضان إن بشهر رمضان كالمددالو تراويح يتهجدك يو وحيابه مارك تهابينك قصتي كمل إنه قفك صلاة سنة أو يستاغو waxay ka mid tahay waxyaabaha muhiimka ah oo in la qabto ay tahay ugu dadaal bisha Ramadaanka qodobka saddexaadna wuxuu yahay sadaqadu aad loogu dadaalo dadka baahi badan baa jirta waad ogtihiin duruufan caadi ah jira in marka aad iyo aad sadaqada loo badiyo meelaha qaxootiyada ee dadka masaakiinta ee dadka qaraabada oo dhibaatada badan